ninkan meesha fadhiyo aad u jeediin wuxuu wataa saacad aan caadi ahayn oo waqtiga istaajinaysa waqtiga intuu istaajiyo oo ninkan cunada wada cunadii oo dhan kala degaa cunadii markii uu kala degana waqtiga wuu fasaxa kadib asaga iyo saaxiibkiisa cunayaan midkii cunada sitay isagoo meel dhaxasi maraya ayuu wuxuu arkaa in wixii oo dhan laga degsaday kadib isagoo yaaban dib u soo laabana wuxuu arkaa marka labada nin oo cunto cunayaan kadib wuxuu ku fikiraa labada nin cunto ma basiinay waxaan ay cunayaan halkay ka keeneen xoogaa kadib wuu soo laabana wuxuu u imaanaa marka ninkan meeshan fadhiyo wuxuu ku dhahaa rasiidkaaga waa kan ay cunada cunto lacagteeda iska bixi kana markii lacagta la weydiiyay jeebkiisa intuu gacanta galiyo lacagtii soo bixinaa ninkan uu ku wareejinaa midkii saacada weyn watay oo waqtiga istaajinayna waa kana wuxuu rabaa ninkaas lacagtii hadda uu ka soo qaaday inuu asaga ka sii qaato markii uu agtiisa soo marayo waqtiga mar labaad istaajinaa kadib buuggii uu wado kala furaa lacagtina wuu ka baxsanaa indha adeegiisana wuxuu taagayaa ninka maxaa ka qadan lacag yar wataa lacagta ma soo badsado midkii lacagta sidina waa kana wuxuu isku maleeyaa inuu wili lacagtii wato ninkii maqaayada iska lahay uu imaanaa kadib wuxuu ku dhahaa ninkaas meesha fadhiya waxaa ka soo qaaday 2,000 oo qaado midkan markii uu baashii kala furo wax dhan muu ku arkay kadib midkii intuu wuxuu ku dhahaa aniga in la'aan miya iimaleysa meeshan wax dhan kuma jiraan awal lacagtii kana markii uu meesha fiiriyo intuu yaabo ninkan wuxuu ku dhahaa niyo hal waxa ka codsanaa kaamiradaada soo bixi oo ka fiiri wixii dhacay laba nin oo sixiroolaya maqaayada dhex fadhiyay kana markii sidaas lagu dhahay hadalkiisa ninkan ma ka diidayay ee kaamiradii oo fiirina markii uu kaamirada fiirina wuxuu arkaa ninkan oo la taagay oo lacagtii laga qaadanayo kadib wuxuu dhahaa labadaas nin wili maqaayada dhex fadhiyaan maysan tagin ee kale aniga ku soo tusaaye doqonimadooda markii cuntada dhameysteen meeshii ma ka tagayaan labadii nin oo imaanaysa kadib way qabanayaan kadib waxaa loo soo wadaa dhinaca jikada si ay alaab u dhaqaan saacadii waqtiga istaajinaysana meeshii looga soo tagay